ولا علينا أن نكباهني ريدها سومالي أنا سومالي لسكنا لكن ويها قرني معنا نظام أو معنا سومالي غيبيا ويا هكبر بارني ريد ويلي باهنيا دولدنا دور تاجرنا دولدنا أنتيون معنا جلسينا دولدنا ما أنتيون هيلنا أن نكباهني ريدها معنا أنت سنعرف فدان دكتورك aad u mahadsan yahay kelmadaha kooban halkan oo inoogu jeediyay runtii gabagabadii aan maraynaa dabcan haddii uu ina maqlaayo waxaan halkan ku soo dhaweyn lahaynay nuur xuseen okay maadaama dad badani halkan ay ka hadleen waqtigiina aad uu inoogu yar yahay waxaan jeclaan lahaynay inaan bal gabagabadii aan ku wareejiyo suldaanka malaaqa ugaaska boqorkana haddaan ku daro waa ka marka waa suldaan cali xasan cismaan maxamed sacab okay sheekh yuusuf wuxuu leeyahay hal kelimad ayaan rabaa inaan ku daro suldaanka intuusan hadlin ka hor sheekh yuusuf hadalkaaga kama dhargeynaya falyatafadal بسم الله الرحمن الرحيم أنا أرى يربان هلمامي أرنتاس وها قصيصة سومال وينتا قصيصة واردار دارم سومال وينتي ونها نجا مقارك نجا ديجا نجا دار دارم قدام بيوي بوجاس كداش لما لكرو واحد قارسين يسين سومال وينتي دار دارم كيجي واحد قارسين يسين إذن كو لمان قبيل فلان إيه نشنت سوماليا ودار دارم هي أنك دتك جبده هوسه هوجا مركان عبرين إذا عادي إذا وحكس مركان فيرينينه هوجا قلاف يرباجرة دتك جبده هوسه وحن عسنينا قابيل كست قبيل مدحوينا ربطه قبيل حلبان ربطه قبيل وقاس ربطه ودورانينا قلاف كمقبنه لكن دتك ولا لا نجا عدو جعنته كسبحه ما ملك الدولة دلود ديبو هاسكينين ندور تعال ده ayagoo taladii meel kale ku xirin biya hoostooda ku xirin meel kale sheesheedii ku xirin ha iskeeneen oo taladii dowladda anaga hadda taagan ilaahay noo keenaa ku xireenoo kadib soomaaliyiintow doorashaan rabna hadda isku soo sharaxeen ayagoo xur ah gacanta soomaali ku jirto meel ku xiran sent gadaal ku xiranin ha iskeeneen oo والله هذا الكم قبنا ودورنا قعدت مدي كل هل أباها اللي طبعا دو يعني عدالة دكانو طبعا كاسان دورنا واحد إلى السنة ماله لكن واحد عسلينا دتك ولا لا نجا أنت سرت جيت قرع وين حق كحري سومالي بنهاي هدهن هاي سكينينو دولة دي تلاهو ديبتو دولة مركلو ديبو هنسوا أنا اسكو شرعي قال إن دور تعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad u mahadsan yahay sheekh yuusuf runtii sheekh yuusuf wuxuu hadalkiisa waxaan ka qaadanaynaa in Soomaaliya ay talada ka go'do aysan qolo kale talada aysan ka go'in gobol walba Soomaali ka mid ah saasaan u fahanay si kale uma fahmin runtii maanta waxaan u fadhinaa gogoshii dhaqanka u fadhinaa runtii wax badan baa siyaasadda la taabtay walow aan ugu talgelin lahaa haddana wixii qalad ah dhacay waxaan leenahay bal hanaga raali noqdo maadaama TV caalami aan laga daawanayo waxaan leeyahay suldaanka hambalyo aad aan kugu hambaleynayaa arintan culus oo yani mas'uuliyadda culus lagu dhiibay maxaa yeelay anigu naftigeyga kelimad leema siin laakiin anigu umba siinay maadaama gabagaabo ay marayso suldaana fale tafadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinta halkan ka soo qayb gashay gaar ahaan walaalaha sokeeye walaalaha kale dhammaantood intaba waa salaamayaa salaan kadib waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waxaa sharaf weyn ii ah mudnaan ii ah inaan idin hor istaago no problem don't worry waxaa mudnaan ii sharaf ii ah inaan idin soo hor istaago idinkoo walaalaha iyaga ah gaar ahaan beesha aan ka dhasho i dooratay gaar ahaan beesha aan xubin ka nahay aan ka soo jeedno digle mirifle gaar ahaan soomaali weynta aan ka soo jeedno annaga markaan abtirsanayno garre markii la yidhaaha soomaaliya waxaan ka tirsanaa hal oday garre gardheere soomaalana la yidhaaha 9 Soomaalo wada dhashay halkaasaan ka gelinaa yacni reerahan walaalaha iyaga qaarkood hawiyaha waa naga tira bateen oo waa isbiirsadeen marmar xataa markaa shirarka ku jirno aniga waa ka sheegi jiro waxaan dhihi jiray war awowyihiin anaa iga xishooda gadaal mara maxaa jira nin garre Soomaalaan ahay marka waa sida loo sheegay waxaan masalaynaa annaga Soomaali weyn oo dhan masalaa marka waxaa si gaara u qiimeynayaa dadkii isku hoolay wakhtigoodii iyo xooggoodii iyo dhaqaalahoodii ku bixiyey shirkan inuu socdo oo inta maanta ka dhaco oo intaana dad isugu keeno oo qurbo joog ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaan intaa ka gudbo caleemisaarkan maanta waxaan loo caleemisaaraya waxaa weeye markay beesha garre fadhiisatay ay ogaatay in ay u baahan yihiin isku xir guud yaa muddooyin 7 bilooda waxaanu ka shaqaynaynay in la isu keeno qurbo joogta dibadaha ku wada nool oo dhan maadaama aad ogtihiin Soomaaliya in dagaal ka dhacay burbur ka dhacay ee kulli qurbo joog u badan yihiin dalkii inta joogta ama Kenya ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto xaggay jiraan laakiin inteena qurbo joogta saa isaga warqab lahayn horaan waxaan ahaa aniga ugaaskii UK markaan arkay oo darsi aan fiiriyey weli waxaan aragnaa in baahi kale ay jirto muddaanu ka shaqaynaynay delegationna fara badan baa isugu keennay oo Yurub iyo meel walba ka yimid kuwiina soo gaari waayena waxay nala isticmaaleen electronic waxay noo soo direen baaq waa isu keennay waxaan samaysanay dastuur waa nidaaminay waxaana lagu go'aansaday in aniga aan maaragtay u noqdo hoggaankoodii aan noqdo hoggaanka cayaar maaha xadiidka nebiga wuxuu ahaa kullukum raaci wa kullukum mas'uul can raaciyati nin walba wixii loo dhiibay ayuu mas-uul ka yahay marka mas-uuliyad yar ma aha laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa sida dad badan bay igu sifeeyaan magacyo badanaa ii baxay meelo badanaa aan tegey sida sheekh Abuukar buu ka dhawaajiyey masaajid baan jeer ka ahaa masaajidkaas waxaa lagu magacaabay transparent and accountability anaa ereygayga saas ahaa wax walba oo la nidaamiyo in masaajidkaas xataa markii wixiisa la nidaamiyo darbiga lagu dhajiyo layska arko wixii la aruuriyo wixii shaqo oo la qabto marka dadaalkaasaan wadaynaa insha allah waxaana ka rajaynayaa xilkaan aan qaaday inaad igu garab qabataan igu qaadaan anigana mas-uuliyaddaas ilaahay hortiisa aan ku qaaday inaan dadaal badan sameeyo dadaalkii aan waday ka weyn mid ka weyn aan sameeyo haddii ilaah yidhaah ama Soomaaliya ahaato ama Ethiopia ahaato ama Kenya ahaato meel kasta oo nin Soomaali dega haddii ilaah yidhaah taa intaa markaan kaga baxo annaga haddaan nahay beesha garre waa isla qab weynahay qabkeenna maaha mid aan ku xumaynayno waxaan iskula qab weynahay inaan dhaqankeena iyo diinteenna ku dhaqanno waxaan iskula qab weynahay in dadka aan walaalayno isu soo dhaweyno isku xirno waxaan iskula qab weynahay inaan la isliidin oo nin ka fiicnaa uusan jirin maxaa jira nin walba wuxuu dhashay asagoo xur ana waa in noosha convention Geneva haddaa akhristaan ama baaqa adduunweynaha haddii la akhristo nin walba asagoo xur u dhistay asagoo xurna waa inuu noolaadaa xaquna wuxuu u leeyahay inuu noolaado annagana taasaan diyaar u nahay inaan ummad kasta la garab istaagno cid walba la ama shakhsi ha noqoto ama reer ha noqoto ama beel ha noqoto ama caalami ha noqoto waxaa kaloo annaga naga go-an daacad aan ka nahay inaan ku dhaqanno cadaalad aan difaacno shakhsi kasta nin kasta oo walaal ah ama noloshiisa ama maaragtay dhibkiisa aan garab istaagno waxaan ku dabaqaynaa insha allah haddii ilaah yidhaaho xadiiskii ahaa yacni hadduu walaalka dhaalim yahay u hiili hadduu dulman yahayna u hiili marka laga gardaran yahay
waa u helina waa garab istaagaynaa kan ka gardarnaan ka qabanayna waa ka dhicinaynaa waa isugu tegaynaa weliba waa garaacaynaa haddii uu gardaran yahayna waa u helinaynana waa qabanaynaa gartaan tusaynaa waxaan leenahay halkan waa ku khaldantahay adeer walaa halkan mar halkanaa saxa ma habboona waxaad ku socotaa haddii ilaahi yidhaah marka taasna waa ballan qaadina haddii ilaahi yidhaah waxaan rabnaa beesha gar haddaan nahay annaga damceenna waa weyn yahay sida loo sheegay in aan wanaag iyo sharaf ku noolano naloo aqoonsado xuquuqda aan dhabta leenahay ee asaasiga aan leenahay waxaa ka mid ah waxaan yidhaahaan essential value waxyaaba la qiimeeya jira waxaynaas waa muqadas lama taabtaan way in diinteena la taabto in sharafkeena wax laga taabto waana dhibaysaa mana yeelin mana dulqaadanayno sida dadka kaleba aan tooda u ballan qaadnay inaan tooda waxba la yeelin annagana saasoo kale inaan sharafkeenna muqadas uu noo yahay aanan laga taaban karin cirdigeenna karaamadeenna aan meel looga dhici karin xuquuqdeenna nala sina waktiga waa gaaban yahay ma rabo inaan ku sii fogaado ujeedooyinka iyo hadafka aan leenahay ma dhowa waa dheer yihiin adduunkan sidiisaba waxaa naloo abuuray inaanu ilaahay caabudno weliba waxaa nalaga horreysay jinni wamaa khalaqta aljinna walinsa illaa liyacbuduun inaan horta cibaadaysano wixii kale ilaaha ballan qaaday waxaan hadda maanta saltanadan la isku dilayay ama dhibaatada ay ka taagan tahay waxaan ilaaha bixi darajadan maanta halkan aad igu dhiibteen maa wax aniga aan samaystay waxa idinka ay samaysteen maama waa wax dusha ilaahay ka keenay qof kasta oo meel loo dhiibayo waa wax ilaahay bari kula xisaabta dhibteedayna leedahay wanaaggeedana waa leedahay dhibteeda leedahay waxaa weeye waa lagugula xisaabtamayaa berito waxaa jira berito marka anigu tii rabbi ii timaado intaana ummad mas-uula horteed ku ballan qaaday 4 shay ay ka mid tahay maxaad soo qabatay dhibkeeday leedahay haddii wanaag aan soo qabteen intaasoo dhan ajarkoodii iyo xasanaadkoodaan helaya marka ma ku fogaanayo wakti waa cariiri waxaa un iga dardaaran ah inaan maaragtay wada shaqayno inaan wada dadaalno inaan isgarab istaagno annagana beesha garre haddaan nahay gaar ahaan waxaan soomaali weyn u sheegaynaa inaan diyaara nahay deris wanaag walaalnimo meel walba oo la joogo deris wanaag iyo walaalnimo cid aan dulmayna ma jirto cid la dulmaayana ma ka yeelayno waa isugu tegaynaa aan ku wada dhammaana haddaan rabno ninkii laga gardaranya waa u helina waa garab istaagayna annagana sidaan hore aan idinkuu sheegnay annagana sharafkeenna inaan meelna looga dhicin waxaana loo xumayn midda kalean rabo waxaa weeye unity waxbaa lagu helaa haddaay walaalkay mukhtaar waa ka dhawaajiyey kenya muddo adigoo 10 sano ah ama 15 sano aan dhaho waa kala daadsanaa garre waa tashtay waa fariistay heer waxay noqotay role model ah taa gaabameel la dhahay fariisteen shirweynaa ka soo baxay golo guurtay dhisteen waa isnidaamiyeen guusha ay maanta ka keeneen mandheera waa la yaqaanaa ilaa maaragtay uhuru kenyatta maanta madaxweynaha uu u ballan qaaday wasiir in la siiyo waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno taasoo kale etoobiya ha noqoto soomaaliya ha noqoto inaan ka shaqeyno ma aha marka annaga inaan saas kaliya rabno inaan ka shaqeyno waxaan rabnaa in lagu daydo oo dadka kale oo walaalaha iyagana inay saasoo kale samaystaan aan garab istaagno wixii khibradda experience aan ku dhaanno diyaaraan u nahay juhdigaas inaan la galno aan u faa'iideyno annagana wixii naga maqan ay noo faa'iideeyaan aan garbaha isqabsanno iskaashi waara wada jira aan ku soconno haddii ilaahi yidhaah intaas markaan ka baxo waa ka baxayaa idinku dheerayn maayo waqti badan baa laidinka cunay waxaan ila dardaaran ah inaan ka faa'iidaysano 5 shay intaan dhalinyaro nahay dad badan dhalinyaraha joogo annagoo naftirkeenna waxaan is dhahaynaa dhalinyarada cuslaataan leenahay weli waa soconnaa weli intaan sariir lana saarin dhalinyaro socotaan iska dhigaynaa intaan dhalinyarada nahay gabowga intuu noo imaan inaan ka faa'iidaysano maalintaad duqowdo salaadaada cunadaada dhaqdhaqaaqaaga sariirtaada meel kasta waa ku dibcaysa marka inta dhalinyaro leeyahay in laga faa'iidaysto oo waktiga aan meel cidlaa lagu lumin ama ha noqoto arrimo bulsho ama siyaasa ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto in xoogga la saaro ama cibaado ilaahi ha noqoto haddii dhalinyarada ka faa'iidayso berita markaad duqowdo waxba ma qabsan kartid waxaa jira soomaalida waxay ku mahmaadaa geedkaad 20 jir ku waabataad 60 jir harsataa maxaa harsanaysa haddaadan 20 jir waxba ku waal
marka waxyaabo badanaa jira taas waa qodobka labaad intii la nool yahay dhimashadeena inaan ka faa'iidaysan intaan la dhiman noloshaada inaad ka faa'iidaysato waxaa jira intaad nooshahay berta markii godka lagu geeyo waxaad ka jawaabi karta ma laha wixii aad soo qabatay baa laakiin intaad inta joogtaad wax ogta waxaa la rabaa marka intaad nooshahay inaad ka faa'iidaysa dhimashadaada geeridaada intaysa imaanin wax walba markaasaa qaban karta hadday cibaado noqoto hadday noqoto arrimo kale wax walba waxaad qaban karto qodobka kale aan galayo waxaa waaye firaaqadaada iyo mashquulkaaga intaad jaanis haysato firaaqa leedahay yaad cibaadaysan kartaa wax qabsan kartaa laakiin mar baa waxaa jirta xataa waa aragteen weliba wadankan aan joogno yurub hadda markaan ka tilmaano ingiriiskan ka joognaay waktiga waa aragteen baraka ma laha saaka waagaa kuu baryaaye intaa iska daba wareegay sidaa wax dhanba dhamaana inta ka bax shaqo kasoo bax cunug iska orgey xagga shoobin soo samee waqtiga goor dhaca mataqaan adoo tacbaan fedha waa guriga tegaysa waa kala toos xataa danta mararka qaarkood dadka qaarkood waa la eedeynaya waa shirka ma imaado kaasaas ma aha war duruufaa ku dhegan meeshan waqtigaan barakalayn duruufo badanaa iska jira marka waa nin ka tegey waxyaabaha qaarkood dadka ay samaynayaan marka ayadana in laga faa'iidaysto oo waqtigaas caafimaadkaaga inta aad qabto cudurkaaga cudur maalintuu ku yimaado waa arta cunno ma cuni kartid hergab yar markuu ku dhaco waa qandhanaysaa waa jiiftaa tacbaan baa tahay daawaha loo raadi intaa loo raadi laakiin inta caafimaad qabtaad wax qaban karta tan ugu dambayso waa tanaadnimadaada intaad taajirka tahay u waxaysato intaadan sabool noqon maxaa jira lama oga inaad caawo xoolahan ku dhaafayaan soomaaliya annaga markaan joognay niman ganacsado waaweynaan ahayn export import samayn jirnay china iyo adduunka o dhan wax kasoo waaridi jirnay dad tujaar caano la yaqaanaan ahayn wixii bililaqay ku baxeen luutin waa la wada qaatay qaxootaankana intaan ka joognaa maanta marka yani xoolaha saasay kugu dhaafayaan laakiin intaad tanaadka tahay oo aad waxaas haysato haddaad masaajid wanaagsan dhisato haddaad niman dhalinyaro oo iskool ama college dhigta aad wax ka bixiso haddaad jaamacadad u dirto waxaasoo dhan waa kuu soconayaan masaajidkaas iyo dadkaas aad wax bartay iyo waxaasoo dhan baa laga faa'iidaysanaya marka waa camal suuban waa camal aad ummadiina ku kasban karto oo mujtamaciina aad ku dhisi karto aad wax walba ku samaysan karto marka aad iyo aad baa umahadsantihiin mar labaad kasoo qaybgalka iyo dhegeysiga wanaagsan aad ii samayseen taageerada aad isiiseen garab istaagga isiiseen ammaan badanoo aan lahayna waa la isii maanta waa ku mahadsantihiin ilaahay intaasoo dhan hanaga aqbalo wixii xunoo naga dhacayna shaydaan iyo waxaan u saaranayna nafteenna ilaahayna waxaan ka baryaynaa towfiiq wanaagsan in ilaahay maaragtay nagu dilo meeshan waa laga guurahayaa transidaan ku nahay nin walba maaragtay lama garanayo caawa qofka iyaga baxaya ilaahay taqwadiisaan iskula dardaarmaynaa mas-uuliyadda ay dhibteena waa mas-uuliyaddan sheegnay marka fadlan waxaan idinka codsanaya soomaali waxay taqaanaa libaax dhegiis intii lagu dhiibo lagu yaraa waa kaas hadee iska dhece marka inaan meesha laygu celaynino garab aan helo haddii ilaahay yaraa wax badana iga buuxo banaankaan soo dhigi doonaa in la dhihin ninkan cali xasana nin loo geli karo maaha mar walba balaayo mashruuc buu wadaayo dhibkiisa badanaa ka yaal inaan laygu dhibsanino maxaa jira nin walba inaan wax u qabtaan jeclahay beel walba inaan wax u qabtaan jeclahay adduunko dhan inaan wax u qabtaan jeclahay darajo doonna ma iyi wax kalena maysabtaan ma rabo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeysiga wanaagsan suldaanka aad iyo aad u mahadsan yahay runtii dad islaamaan nahay haddii aayadihii qur-aanka aan ku furanay waa inaan u dulqaadanaa idinkoo raalli ah haddana aayadihii qur-aanka kariimka ah haddana in lagu xidho waa mahadsantihiin waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على رسول الله اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك